My name is Osman Abdihebe. I'm a documentary writer and producer from Somaliland. And over the next 2 years, I'll travel from one end of this country to the other end of this country so I can bring you the latest and the most up-to-date information about this small country that lies between Somalia, Ethiopia, Djibouti, and on the other side of the Red Sea pond, Yemen. Please stay with us connected with Facebook and also on Twitter right here at Delkenovoyu. And also don't forget to subscribe to our YouTube channel. maanta waxaan si aad iyo aad u soo dhaweynaynaa barnaamij qaali ah oo la yiraahdo Delkenovoyu. imka waa aragtan inuu halkaan fadhiyo waa gaarigan wuxuu leeyahay TV-gii shooladii wax kariska hurdadii oo dalxiisa fadhigo aan iminka fadhiyo AC-yadii qaboojiskii oo waxyaabo ilaahay loogu mahadnaqo oo heeraynu gaarnay Delkenovoyu waxay soo kordhiyeen bacad baanu taagnaa jirnay bacad markaasaa wariyaashu iga duubi jiray iminka halkan baa la fadhiyaa halkanaa la iskaga duubayaa halkanaa loo hoyayaa meel aan wariyaba helin oo wariyuuba gaari karin oo cidiba gaari karin bay ka soo warramayaan oo tegayaan oo xeeb leh oo kulayl leh oo hanfi leh markaasay iyagu waxay helayaan qabowgii hurdadii cuntadoodii ay qaateen oo shooladu korsanayeen baahidoodii oo dhan kaligood baa daboolanaya waa horumar aad iyo aad u wanaagsan weeye oo nimankani gaadheen inaynu nimankan waxaan leeyahay aad iyo aad waa niman horumar soo kordhiyey waa niman dalka wuxuu qabtay waa niman waxa aanay wadaan in la tahay wax lagaga dayda ah sidaa daraaddeed haddaan noo reer berbera aad iyo aad baan u taaniyadeynaa u soo dhaweynaynaa burco soo bandhigtay burcada waa nimada burco ma afacay baa in la xab suuqa ka shaqeynaya marka bashale ma ka faaday hay